Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Waxaan afar xeer ka soo qaadanay buuggii ahaa 48 xeer ee awoodda ee uu qoray Robert Greene. Buuggan waa mid ka mid ah buugaagta sida weyn loogu hadalhayo adduunka oo dhan sababtoo ah waa buug xeerarka ku qoran aad la isugu khilaafsan yahay. Waan ogahay inaysan inta badan qawaaniintan buugga ku qoran aysan waafaqsanin diinteena Islaamka, dhaqankeena suuban iyo anshaxa wanaagsan. Balse hadafkan buuggan ka leenahay ayaa ah inaan wax ka fahanno xeerarka buuggan ku qoran. Laakiin go'aanka ugu dambeeya ee ah xeerarka la qaadanayo iyo xeerarka aan la qaadanayn waxa iska leh damiirkaaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kuu hanuuniyo. Anagu waxaan nahay dad muslimiin ah, suurtagal ma ahan inaan qaadano fikradaha qaldan ee ay gaalada qabaan. Balse ujeeddada aan buuggan soo qaadanay ayaa waxay tahay inaan walaalaheena u iftiimino fikradaha qaldan ee gaaladu aaminsan yihiin. Ma ahan inaan aqbalno ama aan qaadano fikradahooda qaldan. Diinteenu waa Islaam, fikirkeenu waa fikir Islaami ah. Xeerarka buuggan ku qoran waxaan ka qaadanaynaa inta waafaqsan diinteena Islaamka si aan ugu korodhsano aqoon. Buuggani waxaa ku qoran xeerar isugu jira kuwa wanaagsan iyo kuwa aan wanaagsanayn. Sidaa darteed waxaan ugu faa'iidaysanaynaa sida shakhsiga kalluumaystaha ah oo ugu faa'iidaysto badda asagoo kasoo dabta ama kasoo qabsada kalluunka faa'iidada leh kana fogaada bahalada iyo qashinka. Insha Allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa inaan si cad u muujino xeerarka aan waafaqsanayn diinteena Islaamka iyo kuwa macquulka ah ee aan diinteena ka hor imaanaynin. Xeer kasta oo aan waafaqsanayn shariicada Islaamka waxaan u aqoonsan doonaa inuu yahay xeer qaldan oo u baahan in laga fogaado. Dhanka kale, xeerarka aan diinteena ka hor imaanaynin ee leh xigmad iyo danta guud anagoo ilaalinayna mabaadi'deena Islaamka waan aqbali doonaa. Waxaana u aqoonsan doonaa inuu yahay xeer macquul ah oo laga faa'iidaysan karo haddii uusan jebinaynin xuduudaha shariicada Islaamka. Aan sii wadno mawduucayna. Xeerka shanaad, sumcadda ayaa wax walba ka qiimo badan. U ilaali sidii naftaada oo kale. Sumcadda waa aasaaska nolosha. Markaad leedahay sumcad wanaagsan waxaad heli kartaa kalsoonida dadka, xushmad iyo taageeradooda. Sumcadda wanaagsan waxay gaashaan kaaga tahay shakiga iyo bahdilka dadka kale. Haddaba waa inaad mar walba dhistaa, ilaalisaa oo aad difaacata sumcaddaada sidii naftaada oo kale. Ha u oggolaan wax yar oo gef ah inay sumcaddaada dhaawacdo, sababtoo ah hal ceeb oo la faafiyo waxay tirtiri kartaa sumcad aad sanado badan soo dhisaysay. Sumcaddu waa sida naftaada oo kale, haddii aad dayacdo way burburtaa, haddii aad daryeeshana way barakowdaa oo way kobacdaa. Sumcadda qofka waa tiirka ugu weyn ee uu ku tiirsan yahay shakhsiga, gaar ahaan marka uu dhex joogo bulshada uu ku dhex nool yahay. Waa astaanta ka dhigaysa qof la ixtiraamo ama qof la iska inatiro. Markaan fiiriyo xeerkaani aniga ahaan waxaan dhihi karaa waa xeer macquul ah oo la qaadan karo, sababtoo ah diinteena Islaamka waxayna faraysaa inaan ilaashano sumcaddeena iyo cirdigayna. Qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo sumcaddiisa iyo sumcadda qoyskiisa iyo midda bulshadiisaba. Arrintan waxay si gaar ah muhiim u tahay xilliyada maanta ku jirno, sababtoo ah waa waqti ay badan yihiin dembiyada, imtixaanada, fitnada, kaleexashada dariiqa toosan iyo isbeddelada muuqda iyo kuwa muuqantaba. Dhammaan waxyaabahan aan soo sheegnay waxay sababaan in shakhsiga ay ku timaado sumcad xumo, maadaama ay abuuraan fursado qofku uu ku dhici karo dembiyo kadibna halkaas ay ku dhammaan karto sumcaddiisa oo dhan. Casharada aan ka baran karno xeerkan. Casharka koowaad, sumcaddaada waa hantidaada ugu qaalisan. Waxaad lahaan kartaa hanti, xirfad, xikmad, awood, laakiin haddii mar ay sumcaddaada dhaawacanto waxaa hoos u dhacaya dhammaan qiimaha waxyaabahaas aad leedahay oo dhan. Sababtoo ah sumcadda wanaagsan waa dhaxal midka ugu wanaagsan ee laga tago. Sumcad xumadana waa ceeb weligeeda ku raacaysa. 2, sumcadda si fudud ayay ku dhaawacmataa, laakiin si adag ayaa loo soo celiyaa. 3, ha u ekaan qof wax u baahan ama qof ay baahi badan ka muuqato. Haddii aad u ekaato qof wax u baahan, dadka qaar waxaa suurtagal ah inay kaasii fogaadaan, sababtoo ah bini'aadamka baryada badan ma jeclo. Sidaa darteed, xitaa haddii aad baahi badan qabto, dadka kale ha u muujin baahidaada. Waxaadna iska dhigtaa qof isku filan oo aan dadka kale u baahnayn. 4, hal ficil oo qaldan, hal hadallo xun ama hal fadiixad ayaa sumcad dhisnayd sannado badan si degdeg ah ku burburin kartaa. Marka iska ilaali sumcad aad sannado badan soo dhisaysay inay sikino gudahood ay kaaga burburto. 5, xakameey sida ay dadka kale ku arkaan. Haddii aad rabto inay dadka kale ay aad ku qiimeeyaan, waxaad xakamaysaa muuqaalkaaga bannaanka sida hadalkaaga, habdhaqankaaga, ficilkaaga. Markaad tahay shakhsi run badan, dadka aan dulmin,
dadka dabeecad wanaagsan kula dhaqma, qofkii qalad kaa gala iska cafiya, gacan furan oo wax bixiya. waxaad noqonaysaa shakhsi ay dadka aad u jecel yihiin, shakhsi dadka dhexdooda sumcad ku leh oo aad loo ixtiraamo, waxaana ku siyaadaya sharaf iyo qiimaha dadka kale dhexdooda ka leedahay. marka qof waliba inuu ilaashado sumcaddiisa waa shay aad muhiim u ah. sidaa darteed qodobkan waxaan dhihi karaa waa qodob macquul ah oo la qaadan karo. xeerka 6aad, wax walba marka la arko ayaa la qiimayn karaa. naftaada ka dhig mid soo jiidasho leh oo dadka dhan arki karaan. shay walba waxaa lagu xukumaa muuqaalkooda, waxaan la arki karin qiimo ma lahan. dadka inta badan waxay qofka ku qiimeeyaan sida uu u muuqdo hadalkiisa, labiskiisa, dadaalkiisa iyo sida guud oo bulshada dhexdeeda ugu dhex muuqdo. qofka aan muuqan ama ay dadka kale ka sheekeen si fudud ayaa loo iloobaa. sidaa darteed xeerkan wuxuu kugula talinayaa inaadan noqon qof dadka kale ku dhex milma, qof iska caadi ah oo aan dadka kale laga dhex dareemayn. haddii aadan noqon shakhsi naftiisa soo bandhiga, soo muujiya, lagama yaabo in dadka kale ay ku arkaan, ku qiimeeyaan ama xitaa ay fursado ku siiyaan. tusaale fudud, xilliyadan iskuullada wax ka baran jirnay waxaa jiray arday si cad ugu dhex muuqday iskuulka. qaarkood waxay ahaayeen koob galaasyada, qaarkood waxay ahaayeen kuwa si joogta ah ugu qayb gala tartamada koobabka iskuulka laga dhigo, kuwa kale waxay ahaayeen ardayda kaalimaha hore fasalkooda u gala. waxaa kala jiray kuwa ka dhex muuqday taabuurada iyo nashaadaadka uu iskuulka qabto. ardaydaas waxay ahaayeen kuwa si fudud loo aqoonsan karo, magacyadooda si sahlan loo xusuusan karo, xitaa ilaa iyo maanta waxaa dhici karta inaan la ilaabin magacyadooda. laakiin dhanka kale waxaa jiray arday kale magacyadooda in la xusuusta iska daaye, waxaa shaki ku jira inay iskuulka dhigtaan iyo in kale. ardayda noocaas oo kale waxay ku dhex milmeen dadka kale ama ardayda kale. marka farqiga u dhexeeya labadaas arday waxay tahay kuwa way ismuujiyeen, kuwa kalena isma muujin, waxayna ku dhex milmeen kuwa ismuujiyey. marka noloshu waa sida tartan oo kale, dadka dadaala ayaa la qiimeeyaa, la xusuustaa, fursadahana helaa. haddii aad rabto inaad ka mid noqoto dadkaas, waa inaad naftaada u soo bandhigtaa si xushmad leh oo xigmadaysan. ha noqon mid ka mid ah dadka la iloobo, ahow mid la xusuusto kartidiisa, hadalkiisa iyo wanaaggiisa. dadka guulaysta waa kuwa ka dhex muuqda bulshada dhexdeeda. si aad u noqoto qof muuqda, waxaa waajiba inaad ka fogaato caajiska, cabsida iyo raaligelinta joogtada ee dadka kale, sababtoo ah astaamaha noocaas oo kale ah waxay kaa dhigaan shakhsi daciif ah oo laga dareemo inuu yahay mid kalsooni la'aan ku nool. caajisku wuxuu dilaa rabitaanka horumarka, wuxuuna furaa albaabada niyadjabka iyo guuldarrada. qofka caajiska badan wuxuu lumiyaa fursad walba soo marta, wuxuuna ku dambayn doonaa inuu ku tiirsanaado dadka kale. sidoo kale cabsida waa xabsi maskaxeed, waxay kaa hor istaagaysaa inaad tallaabo u qaaddo dhanka horumarka, inaad naftaada rumaysato ama aad iska difaacdo marka lagugu xadgudbo. qofka cabsida ku nool had iyo jeer waa mid ka dambeeya asaagiisa kale. raaligelinta xaddaafka ee dadka kale waxay muujisaa inaadan lahayn mowqif adag. markaad dadka kale qalad ka gasho, waa dabiici qaladkaaga inaad raaligeliyaad ka bixiso. raaligelinta xaddaafka ah ee dadka kale raaligelinayso waxay muujisaa inaadan lahayn mowqif adag. micnaheedu ma ahan inaadan dadka kale raaligelin. haddii aad shakhsi qalad ka gasho, waa waajib inaad raaligeliso. balse markaadan dadka kale qalad aadan ka gelin, haddana aad mar waliba isku dayayso inaad raaligeliso, waxaad si tartiib ah u luminaysaa ixtiraamkii dadka kale kuu hayaan. qof kale karti, damiir iyo kalsooni wuxuu ka fogaadaa 3dan shay aanad war soo sheegnay. wuxuu iska ilaaliyaa cabsida badan, sidoo kale wuxuu ka fogaadaa caajiska, sidoo kale wuxuu ka fogaadaa inuu si xad dhaaf ah dadka kale u raaligeliyo. 3dan shay aan soo sheegnay waxaad ku bedelataa intaad caajis meel la fadhiisan lahayd, waxaad la timaadaa dadaal badan si aad u gaarto hadafkaaga. sidoo kale intay cabsida kaa reebi lahayd gaarista hadafkaaga, waxaad wajahdaa cabsidaas si aad u gaarto hadafkaaga. waxaad iska ilaalisaa inaad noqoto shakhsi wax walba u samaynaya inuu ku raaligeliyo dadka kale. mid xusuusnow, kalsoonida, adkaysiga iyo go'aan qaadashada saxda ah waa astaamaha dhabta ee qofka awoodda leh. casharada aan ka baran karno xeerkan: markaad si fiican isku muujiso, si xushmad leh u hadasho, si heer sare u labisato, kartidaada si wanaagsan u muujiso, waxaad helaysaa sumcad adag. dadka cabsida badan, xishoodka badan waxay dhahaan ha ismuujin sidaysan dadka kale ku arkin. laakiin xeerkan wuxuu dhahayaa haddii aadan ismuujin, waxaad noqon doontaa mid la iloobo. sidaa darteed waa inaad iska ilaalisaa xishoodka xaddaafka ah oo aad kalsoonidaada kor u qaaddaa. naftaada aamin, ogow in qof walba uu leeyahay karti iyo wax u gaar ah oo uu bulshada kale kaga dhex muuqan karo. ha ka baqin in lagu arko ama codkaada la maqlo. waxaa muhiim ah inaad si xigmad leh oo xushmad leh aad bulshada ugu dhex muuqato.
xeerka toddobaad ka faa'iidayso aqoonta kartida iyo shaqada dadka kale si aad u gaarto hadafkaaga laakiin adiga qaado ammaanta iyo guusha shaqada la qabtay micnaha uma baahnid inaad wax walba adiga keliya aad qabato si aad u guulaysato waxaa jira dad aqoon leh xirfad leh iyo khibrad leh dadkaas ka faa'iidayso shaqo walba aad rabtana ayaga ku qabso adigana qaado ammaanta iyo wanaagga shaqada la qabtay tusaale fudud qof ganacsada ah ayaa adeegsanaya koox khubaro ah si ay ugu hirgeliyaan mashruuc markuu mashruuc guulaysto wuxuu si toos ah u sheegayaa in guushaas isaga la'aantiisa aysan suurtagal noqon lahayn iyo in hoggaankiisa uu ahaa sababta rasmiga ee guusha kooxda la shaqaysay waxaa laga yaabaa inaan si weyn loo xusin laakiin isaga ayaa qaadanaya sumcadda iyo magaca mashruucaas xeerkan inta badan waxaa adeegsadaa madaxda shirkadaha siyaasiyiinta ganacsatada iyo ragga mas'uuliyadaha sarsare haya laakiin markaan si wanaagsan u fiirino xeerkan waa mid aad u qaldan oo aan wanaagsanayn sababta uu xeerkan u wanaagsanin ayaa ah inaysan habbooneen in si bareer ah loogu xadgudbo xuquuqda dadka kale ama loogu faa'iidaysto dadaalkii ay sameeyeen si aan cadaalad ahayn waa cadaalad daro in qof uu miro ka gurto shaqo uu qof kala qabtay diinteena suuban ee islaamka waxayna faraysaa in qof walba uu xaqiisa qaato lagana fogaado dulmiga iyo xadgudubka ma ahan mid sharci ah in la boobo ama la lunsado howl uu qof kale ku dadaalay waxaa laga maarmaanaa in bulshadu ay fahanto muhiimadda leedahay ilaalinta xuquuqda dadka kale lana ilaaliyo cadaaladda iyo daacadnimada ugu dambayn waa inaan dhiirigelinaa xeerarka ku dhisan runta cadaaladda iyo wada noolaanshaha si bulshada ay u horumarto qof kastana uu u helo xaqa uu leeyahay casharada aan ka baran karno xeerkan 1 shakhsi walba waa inuu helaa waxa uu xaqa u leeyahay 2 islaamku si weyn ayuu u taageeraa cadaaladda wuxuuna si adag ugu digaa in xuquuqda dadka kale lagu xadgudbo 3 dulmiga wuxuu horseedaa isnaciib kala tag bulsho iyo burbur nidaam xeerarka sidan oo kale waxay sababi karaan in dadku dareemaan cadaalad daro halkaasna waxaa ka dhalan kartaa dhibaatooyin aad u fara badan marka waxaa muhiim ah xeerka noocan oo kale inaan ka fogaano xeerka 8 ku qasab dadka kale inay adiga ku yimaadaan iska ilaali inaad adiga u tagto xeerkan qoraaga buugga wuxuu dhahay ha noqon qof had iyo jeer daba orda dadka kale barya ama u muuqda mid baahi badan u qaba halkii aad dadka kale daba ordi lahayd ayaga ku qasab inay adiga fadhigaaga kugu yimaadaan la imow xeelado ku qasbi karaa inay adiga ku yimaadaan sababtoo ah qofkii mar walba daba orda dadka kale wuxuu lumiyaa sharaftiisa iyo karaamadiisa balse qofkii dadka oo dhan asaga ay soo daba socdaan asaga hormuud u ah wuxuu kasbadaa sharaf kalsooni iyo awood sare dadka inta badan waxaa soo jiita qofka degan leh adkaysi oo aan hadda iyo jeer daba ordin wax kasta markaad u muuqato qof isku filan waxaad kasbanaysaa tixgelin gooni ah tusaale ganacsada weyn ayaa raba inuu shirkad yar la midoobo laakiin ma muujinayo inuu isaga rabo inuu shirkadaas la midoobo wuxuu sameynayaa ama uu abuurayaa fursad weyn oo u muuqata mid faa'iido badan u leh shirkadaha yaryar ee soo koraya si shirkadii yareed ee uu isaga rabay inuu la midoobo ay tartanka u soo gasho kadibna ay codsato mashruucaas in iyada la siiyo markii shirkadii yareed ay u timaado ganacsadihii rabay inuu la midoobo shirkadaas ganacsadaha ayaa lahaan doona markaas gacanta sare sababtoo ah asaga ayaa fadhigiisa loogu yimid kadibna asagaa dejinaya shuruudaha heshiiska wuxuuna u maamulaya shirkadii yareed sidii asaga uu rabay micnaha ganacsadaha inuu adeegsado baawarkiisa kadibna uu kusoo jiido lacagtiisa shirkada yareed si uu mashruuc u siiyo kadibna shirkadii oo dhan asaga uu maamulo casharadan ka baran karno xeerkan haddii aad rabto inaad hoggaan noqoto dadka kale ku qasab inay fadhigaaga kugu yimaadaan halkii aad adiga fadhigooda ugu tegi lahayd ha muujin baahi ama xiiso badan adiga noqo qofka dadka kale ay xiiseeyaan oo ay u baahan yihiin mar walba waxa awoodda iska leh midka wax suga ee aan ficilada degdega samayn haddii aad rabto inaad maamusho dadka kale iska dhig mid ayaga faa'iido u haya xogta waqtiga iyo dareenka dadka kale adiga gacanta ku dhigi kara sababtoo ah marka qorshaha maamulka adiga dejinayso wax walba adiga gacanta kugu jiraan marka isku day mar waliba inaad noqoto qof degan dadkaan daba ordin asiga fadhigiisa loogu yimaada si aad u noqoto qofka gacanta sare leh xeerkan 8 wuxuu ku barayaa sida dadka kale u maamuli lahayd adigoo adeegsanaya awooddaada iyo caqligaaga sidoo kale waa xeer ku baraya khiyaanada iyo dhagarta waa xeer aan wanaagsaneyn sida aniga ila tahay kaliya aqoon aan u qaado balse ha ku dhaqmin
sababtoo ah waa xeer qaldan. insha allahu tacaala taxaneena maanta halkan ayaan ku ekan doonaa. muuqaalka dambe waxaan sii wadi doonaa xeerka 9aad haddii Eebbe subxaanahu wa tacaala u idmo. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.